horeyn waan soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa barnaamij aad muhiim u ah oo qof walba anfacayo inaan ka hadalno. barnaamijkan wuxuu yahay waa Google Forms ayaa la dhahaa. waxaa lagu diyaariyaa su'aalaha online ka lagu diyaariyaa. sidoo kale waxaa isticmaala qolyaha questionnaire-ka sameynaya ee dadka macluumaadka aruurinaya tusaa. waxaa loo isticmaalaa isdiiwaangelinta hadaa rabto barnaamij online inaad dad ka diiwaangeliso sidoo kale waa u isticmaali kartaa barnaamijkan aan rabno inaan wax ka taabano. Allahumma salli ala mutasifun. hadda dan barnaamijka si toos ah aan usii gudagalno. barnaamijka horta waxaa kusoo kicin kartaa dhowr qaab. laptopna waa ku isticmaali kartaa, horta mobilena waa ku isticmaali kartaa, laakiin waxaan baranaynaa sida laptopka loogu isticmaalo. marka qaabo badan usoo kici kartaa. halkan waad ku qori kartaa www.googleforms.com oo ku qori kartaa. waxaa kaloo ka heli kartaa qaybtaas sare ee halkaas. inta badan laptopyada way wada leeyihiin. halkaas hadaad fiiriso waxaa kugu jiro applicationo badan ama barnaamijyo badan halkan kugu jiro. waxaa soo kicinaysaa barnaamijka Drive la dhahayo ama Google Drive ee halkan kugu jira soo kicinaysaa. marka Google Drive aad click soo siiso, meeshan Google Drive asaga kaligiisa u baahanba inaa wax badan inaa ka ogaatid. macnaha Google Drive waa meel wax ku kaydsan karto barnaamijyo badan way ku guda jiraan oo waa ka isticmaali kartaa. waxaa ku guda jiro Google Slides ku jiro, waxaa ku jiro maxay ahaydey Google Documents Slides ku jiro, barnaamijyo badan ku jiro Google Calendars, barnaamijyo badan marka Google Drive kan hoos imaado marka waa isticmaali kartaa. halkaas new-da hadaan tagno markuu Google Drive uu saan kugu soo kaco meeshaas ay ku qoran tahay new hadaan click siino halkan daaqadan ayaa noo soo furmayso. daaqadan markay noo soo furanto halkan waxaad ka arkaysaa barnaamijyo badan ayaa halkan ka arki kartaa. meeshan ay moo ku qoran tahay sii dhufato barnaamijyo badan oo aad sii arki kartaa. anaga laakiin waxaan u soconaa Google Forms. barnaamijkan Google Forms ay ku qoran tahay ayaan u soconaa. marka Google Forms hadaan click ku siino oo aan ku dhufano daaqadan ayaa noo soo furmi doonto. daaqadan markay noo soo furanto waa meeshii aan wax ku diyaarin lahayn weeyaan. halkan meesha wax ku diyaarin lahayn halkan weeyaan. magacaan oo la baxaynaa tusaale ahaan korkaas waxaan iskaga qoraynaa Ciid Cabdi. magacayga iskaga qoraynaa halkaas Ciid Cabdi ku qorno. okay halkaas markaan ku qornay halkanna way noogu qorantay. macnaha kor waxaan ku qornay ee halkaas noogu qoran waa ciwaankeena weeyaan. ciwaankan waxaan rabnaa marka inaan ka bixino macluumaad description inaan ka bixino. tusaale ahaan Ciid Cabdi anaga hadda waan ku qoray, laakiin waxaad u bixin wuxuu noqon karaa barnaamijkaada questionnaire noqon karaa. magacaad usoo bixin kartaa. marka barnaamijkaaga magaciisa title-ka guud ee uu leeyahay aad halkaas ku qoraysaa. marka anaga hadda tusaale ahaan title-ka guud markaa qorto halkan waxaa ku qori doontaa title-kaas ama magacaas guud ama barnaamijkaaga guud magaciisa faahfaahin hoos imaanaysa halkan ku qoraysaa. tusaale ahaan waxaa ku qoraysaa barnaamij tababar ah ayaan iskaga qoraynaa. marka halkaas markaan saa iskaga qorno adigu hadhowto waxaad qurxsan kartaa. halkan intaad highlight saartood aad weyneyn aad bold ka dhigi kartaa, link ahaan ka dhigi kartaa, waxaa sii qurxsan kartaa. marka halkan ay ka bilaabanaysaa marka su'aalaha ugu horeeyo ka bilaabi doontaa qofka magaciisa. tusaale ahaan inaad magaciisa weydiiso magac oo saddexan aad dhahaysaa. halkan markaad magac oo saddexan dhahdo hadhowti marka inuu halkan kugu qorartaa qaybtaasaad tegaysaa. hadda waxaa noo dooran multi juice noo dooran. waxaan ka dooranaynaa qayb oo su'aal answer ah, short answer aan ka dooranaynaa. waxaan rabnaa jawaab yar inuu ku qoro halkaas. qofka magaciisa aan weydiinay magacaaga oo saddexan aan dhahnay kadibna short answer aan dhahnay. halkan hadhowti magaciisa ku qori doonaa. haddii halkan qaybtan midige qaybtan oo dhankan jirto waxaa weeyaan qaybtan koowaad waa su'aal inaad kusoo darto oo hadda su'aal hadda saan ku diyaarsanay. haddaan rabno mid kale inaan kusoo darno halkaan aan ugu soo darinaa balaaska ay ku qoran tahay. haddaan rabno section laba section inaan ka kala dhigno wixii su'aala waan furi doonaa insha Allah. wixii su'aala waan furi doonaa. marka laba section hadaan rabno inaan ka kala dhigno tusaale ahaan sax iyo khalad aan soo wadnay. sax iyo khalad hadaan rabno laba section hadaan ka kala dhigayno qaybtan ayaan ku dhufanaynaa oo qaybta sax iyo khaladkeeda hadana qaybtan dambe waxaan ka dhigan karnaa su'aalo oo ka doora ah. marka qaybtana waa title guud hadaan rabno inaan u sameeyno
qaybtana waa sawir hadaa rabto inaad kusoo darto video hadaa rabto inaad kusoo darto hadaa rabto hadana section inaad u kala sameysid laba qayb inaad ka kala dhigtid marka waa qaybihii aad isticmaalayso weeyaan hadda tusaale ahaan ana waxaan qornay magacaaga oo saddexan qofka magaciisa oo saddexan aan weydiinay halkan uu qori doona laba qaab waa sameyn karnaa inaan add inaan dhahno su'aal ku soo dar inaan dhahno ama inaan halkan aan midan aan sii koobiyeyno labadaas mid waa sameyn karnaa tusaale ahaan add aan dhahno su'aal kale noogu daray marka waa kana su'aal kale noogu daray marka waxaan dhahaynaa tusaale ahaan lambarkaaga qofka meeshan aan rabnaa marka lambarkiisa noogu qoro doorashada waan ka bedelaynaa waxaan ka dhigaynaa short answer su'aal yar wax yar inuu kusoo qaraarnaa magaciisa inuu kusoo qaraarnaa halkaas marka aqaari hal xabana ila fiiriya meeshan hoos waxaa noogu qoran inaan su'aasha sii koobiyeyn karno sii badan karno sidoo kale halkan waxaa noogu qoran inaan su'aashan dileedi karno sidoo kale halkan waxaa noogu qoran required waxaa laga wadaa su'aashan qasab ka dhig macnaha asoo qofkan ka jawaabin oon magaciisa qorin ma ka tegi karo haddaan halkan aan furno oo required aan dhahno qofka kama tegi karo hadhowti waa qasab inuu meesha magaciisa inuu ku qoro haddaan halkan dhahno Joyce waaye qofka hadduu rabo magaciisa ku qoro hadduu rabo ka tagaa marka halkaasna waad ogaanaysaa okay marka qofka dhahdid magaciisa qor lambarkiisa oo qoray su'aalka intaas waxaad dhigi kartaa waa hal section aad dhigi kartaa halkan qaybtan aad ku dhufan kartaa hal section waaye qaybtana marka u bilaabaysaa waxaad dhahaysaa ciwaan waaye waxaad dhahaysaa qaybtan waa su'aalaha sax iyo khalad صح يا خل هالكاس قرنسا كدبنا واحد هيسا تصالها ماشن كدو معلومات كي كسي قريسا كدور جوابت صح ذا اساس عمل اوكي سؤالها بلابسها مركا هل كان سؤالها بلابسها صح يا خلتك تصالها لو حاليا هاي دقال كي بدر وحو دعاي sanadkii saddexaad su'aalahan saasaan dhahnay marka su'aashan sax miyaa mise khalad waa halkaan ugu kala qoraysaa marka waxaad dhahaysaa sax halkan aad dhahaysaa waxaa leedahay marka khalad midka uu dooran doono si looga saxo ama hadhowti khalad loo dhaho ama sax loo dhaho halkan ayaad ugu kala dooraysaa marka halkaan ugu kala dooraysaa marka hadda labaduba hadduu midkan doorto hadduu sax doorto iyo hadduu khalad doorto wax natiijo lama siinaayo sidoo kale lama siinaayo maxay ahayday lagama khaldaay ama looma saxaayo laakiin aan usoo furnaarnaa barnaamijkaas inaan usoo furnaarnaa qaybtan settingida ayaan tegaynaa meeshan ay ku qoran tahay make this a quiz aan u furaynaa halkaas aan u furaynaa qaybtan hoose hadaa usoo degtid hadhowta waxaa ku qoran meeshan waxaa ku qoran pointska arid inaad ku saxdid imtixaankaaga waxaan leenahay 10 darajo rabnaa inaan ku saxno 10 darajo ku saxin halkaas soo gelinaynaa ina ifahmaysiin arjana hadhowta su'aalo ay weydii kartiin halkan hadaan sii furna lafteeda hadhowta qofka markuu ka jawaabo waxaad rabtaa inuu hal mar bis inuu ka jawaabo mar labaad inuu ku soo laabto martid halkaan u furaysaa sidoo kale waxaad rabtaa halkaan hadaa sii furto ayadana waa ku sii wadi kartaa oo halkan qaybtan hoose waxa kugu qoran hadhowti markuu qofku uu su'aalihi ka jawaabo kale macluumaad waxa usoo bixi doono qofka markuu su'aalihi dhameeyo uu samid u dhaho maxaa usoo baxay halkan hadaa idhidahid waxa usoo bixi doono mahadsanid tusaale ahaan markuu dhameeyo waxaad dhahaysaa mahadsanid halkaas mahadsanid safe aan leenahay okay marka halkaas saas aan soo dhahna qaybtan kore waxaa noo soo fuulay pointska ama imtixaanka wixii aan ku saxeynay haddaan usoo laabano marka questionska ama su'aalihi aan wadno haddaan usoo laabano oo aan qaybtan imaano meesha aan sii wadnay okay meeshan hadda waxaa noo soo fuulay points ama inaan saari karno darajo inaan siin karno aan sii wadno halkan click aan sii dhahno tusaale ahaan halkan click aan sii dhahno su'aasha labaad aan qorno tusaale ahaan waxaan leenahay nabi wuxuu jiray 63 sano markuu geeriyoonay
okay su-aashan marka sax iyo khalad waaye saxaan dhahaynaa halkan waxaan dhahaynaa tusaale ahaan khaladaan dhahaynaa marka sax iyo khalad midda uu dooranayo hadhowti si aan darajada u siina meeshan ay answer key ay ku qoran tahay halkaasaan ku dhufanaynaa darajada halkaanaan ka siinaynaa marka waxaan dhahaynaa waxaad siisaa qofkaan hadduu saxo 5 darajo sii okay waana su-aashan hadda sax waa maano sax inuu doortaan rabnaa hadhowti hadduu sax doorto 5 darajo uu helaa hadduu khalad doorto 5 darajo uu weynaa okay qaybta sectionkaas waa sax iyo khalad halka xabisaan ku gaabsanaynaa qaybta labaad waxaan tusaale ahaan ka dhigaynaa ka doorasho ka dooro aan dhahaynaa sectionka labaad ka doorasho aan dhahaynaa ka dooro aan dhahaynaa ka dooro markaan dhahno macluumaadkii halkan ku sii qori kartaa tusaale ahaan marka waxaan leenahay dagaalkii Uhud wuxuu dhacay sanadkii markaan dhahno annaga ka doorasho waa mugtahay waxaan dhahaynaa saddexaad labaad afaraad okay hadhowti marka hadduu uu doorto saddexaad hadduu doorto 5 darajo uu helaa okay 10kaas darajaan saas ugu saxeyn marka okay 10kaas darajo saas ugu saxeyn 5 darajo qaadan doona qofka markaas okay saana marka su'aalaha loo diyaariyaa understood wali fahma rajina kol kor waxaan dhahnay waxa soo furinaysaa google waxa soo furinaysaa google forms soo furinaysaa qaybta kor magacaaga ku qoranaysaa qofka magaciisa lambarkiisa waxa ku sii dari kartaa meesha uu degan yahay waxa ku sii dari kartaa iskuulka uu dhigto waxyaalahaas dhan waa weydii kartaa iskuulkee dhigataa intee degan tahay wax dhan su'aalaha weydii kartaa section koowaad marka sax iyo khalad ka dhigna anaga saan camal loo diyaariyaa ka doorasho sidaan oo kale loo diyaariyaa marka diyaarinaysid intaas ina fahanteen anagu waxaan tusaale ma soo qaadanay qaybtan kore marka hadda fiiriyaa qaybtan kore waxaad ka bedeli kartaa colorska iyo fontiska iyo waxaas ka bedeli kartaa fontiska waa fartu markaas ugu qoran waa bedeli kartaa hadda colorska meesha waa ka bedeli kartaa colorka guduudka sii kartaa waa sii qurxi kartaa laakiin inta ugu muhiimsan waa inta aan hadda sheegay marka ugu dambeeyso waxa sameynaysaa sendidaas ku dhufanaysaa linkaana u qaadanaysaa sendidaas ku dhufanaysaa linkaana u qaadanaysaa qaybta dhaxa ku dhufanaysaa linkii ii soo yaraa dhaysaa kadibna linkaana u qaadanaysaa meesha hartaa markii la aayaysaa linkigaas waa wadataa linkigaas marka cid hartaa u diray hadda groupkeena oo kale tusaale ahaan hadaa ku diro saan oo kale kaas su'aali hadda fiirsiyaa inta hadda diyaarinay waa formka hadda diyaarinay markii saa yahay waa ku kaas marka okay ugal safiri sida hadda uu diyaarsan yahay anaga lafteena hadda halka ka sii galno oo ku sii dhufano waa kuwana qaabka anaga wax u diyaarinay waa ciid abdaa ku qornay barnaamijka tababar ah aan ku qornay magacaaga saddexan lambarkaaga next qof ku dhufana hadhooti next markuu ku dhufto su'aalahan uu ka sii shaqeey doonaa marka adiguna ka soo shaqeey kartaa hadda ka shaqeey kartaa okay naw maxamed saxan dhaheena tusaalahan next yaa leenahay okay meeqas dagaalku wuxuu 3 next yaa leenahay okay okaas scorekan maadsinida daay meesha ku qorin wax xasuusta maadsinida meesha ku qornay okay adhooti marka halkan qofka halkan u imaana adigu wakaas marka one response waa u jeednaa hal qof ka soo shaqeey waa aniga ka shaqeey fiiri aniga ka soo shaqeey magac laakiin waxa kuma soo qorin magac ay kuma soo qorin ada hadda magaca ku soo qor ka soo shaqeey ka shaqeey magaca ku soo qor waa arkeena halkan ka arkeena response meesha su'aalaha ku diyaarinayna meesha waa dad ka soo jawaabay meeshan waa settingida ka maamulaysi waa hadda hal qof ka soo shaqeey adigana ka soo shaqeey hadda su'aalihii meesha aan soo dhignay hadda meesha sida iga muuqato 3 qof ka shaqeey marka halkaas saas ku diyaarsanaan doona wax su'aalaha diin jirin waa fasaxan insha Allah waqti ay u tala galna waa qaadan aad u mahadsantiin